السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب إني سلامي دمانتين ولا هاي كحيران كنال كنا وحمانت كهاد لنا إنها قبح أو تيسنكا iyo waxyaabaha lagu garto autism-ka wax dheer hal video lagu soo koobi kara maaha laakiin ilmaha markuu dhasho wuu ku dhashaa ilmana sanad markuu yahay baa calaamadihiisa la gartaa oo ilmo 3 sano ilmo 4 sano uu ku dhacaa waxana ma aha wax ma aragtay xanuun maanta la dhihi karo waxyaalahaas laga qaada ama laga taxadaro waxyaalahaas oo kale laakiin muhiimadu waxa waaye dadku baaritaamo la sameeyo waxaas mar waxay dhahaan waa talaalka mar waxay dhahaan talaalka ma aha mar waxa la dhahaa waa hooyooyinka daawooyinka cuna waxa jira hooyooyin daawooyin aan qaadan markay uurka leeyihiin adigu marba waxba lagu saleeyaa laakiin wax hadeer fadhiya oo la dhihi karo maanta waxa jira waxaas laga hortagi kara ama waxaas keeni kara oo la xaqiijiyay ma jirto dadba kuwa wax sibay leeyihiin haddana ciyaaladena Soomaaliyeed aad ay ugu soo badatay faamilada qayb 2 ilmo ay kaga dhacaan qayb hal cunug haysta laakiin muhiimadu waxa waaye inay inagu ilmaheeni ayna qarsan ayna group ku qarsan ayna dhihin cunugay badan oo Soomaali hadaan waxyaalaha xanuunka oo Ilaahay keeno iyo waxyaalaha qadarta oo Ilaahay keeno waa ku caynaa dadka ha cabsan hooyo iyo aababa ha cabsanina ilmihiina hadaa ilmo kale idii joogan aad ka dareentaan cunugaagu inuu bedelan yahay oo ilmihii hore ka bedelan yahay sida ugu dhaqtiyaha badan la xiriir dhakhtarkaaga caadiga ah oo ilmaha qaabilsan waxa dhahdaa u sheeg calaamadahaas ilmaha kaga duwan yahay cunugan waa ka shakiyay maxaa khaldan markaas baaritaanku kugu horeysa uu galayaa taas marka la ka hadlayo dhakhtarka laakiin muhiimadu waxa waaye ilmaha markuu baby yahay uu dhasho ilmaha marka la hadlayso uu hadlaayo moogtahay ilmaha qayb dhawaaqa waxay ku keentaa 6 bilood 7 bilood qayb 3 bilood xadaaqa qayb 2 bilood xalaaqa qof ilmo waa in laakiin muhiimadu waxa waaye dhaqanka inaad fiirisid cunuga soo u dhaqmaayo cunuga markuu yar yahay xadaaqayo marka la hadlaysid wajigaagu ayuu fiirinayaa wajigaagu waxa leedahay uu fahmaya cunugii waa ilmaha caadiga laakiin ilmaha kale kuma siinayo wajigiisu isbedbedelaa maalinba joog buu ku jiraa joogiisa lama sixi karo joog aad isleedahay jooggaas uu maanta yahay ma isdhahaysi maalin waa iska faraxsan yahay maalin waa iska ooyaya cunuga oohin buu ku waalanayaa maalin wuxuu sameynayaa ay soo qabo maalin waa iska aamusan yahay ilmaha badano autism-ka mar ma hadlaan ilmo way hadlaan ilmo ma hadlaan ilmaha xadaaqa oo markay isagoo 3 sano jiro oo meeshu ka hadli lahaa buu xadaaq keenaya ilmaha xadaaqinba oo 3 sano 4 sano uu ku xadaaqinba ilmaha waxay ku leeyihiin jirka ilmaha koritaankiisa ilmaha laba uu noqdaa ilmaha jirkiisa marbu kaga dhacaa oo ilmaha jirkiisu ma koro koritaankiisu waa aad bay daciif u noqotaa koritaanka ilmaha lama dhihi karo waa ilmo xanuunsan oo jiran lama dhihi karo runtii sababtoo ah ilmaha caafimaadka qaba oo dhameystiran oo Ilaahay dhameystiray maskaxda iyo wax kasta dhameystiray buu mararka qaarkood ilmuhu ka fiican yahay oo ka aqli badan yahay ka jir qurxoon yahay ka active yahay marka xanuun laguma tilmaami karo marka ilmuhu way isku kala jiraan ilmaha calaamaduhu ku badan yihiin calaamaduhu way kala duwan yihiin ilmaha waxa arkaysaa haysatid ama ilmo kale oo hooyo kala haysato waxay kala yihiin laba sakti bay kala yihiin iskuma dhawa wax isku calaamado isku soo jiidayana malaha maanta lama soo koobi karo hal calaamad oo la dhihi karo waa lagu garan karaa laakiin ilmahaasi waxa loogu garan karaa oo hooyadu ku garan kartaa aabuhu ku garan karaa muhiimada ah contacting indhahaga ma saaraayo cunuga si fiican kuma fiirinayo abba haduu ku fiiriyana ma kugu haynayo ma ku dhageysanayo
hadalkaagu kuma socdo isagaa isku maqan iyagu waxay ku leeyihiin dadka caddaanka ah dhakhtarada markaa la sheekaysato waxay ku leeyihiin ilmahana adduunyo kale ku jira adduunyadaadan maba joogo adduunyo kale ku jiro sidoo cunugayga adduunyo kale ugu jira adduunyo waaba hal adduunye marka waxa keenaysa ilmaha waa ka mashquulsan yahay ilmaha waxa u maleynaysa inuu dhagool yahay cunugii uu ku maqlay uu dhagii wax ka maqlay oo maanta waxaad u haysataa inuu cunugaagu dhagool yahay joogta hada markii controlka la marsiinayo ilmaha khasab waa in dhagaha la baaraa waa in la baara meelo badan la baara marka video kale kuma soo koobi karo insha Allah waa inii soo badinaya dadkii ka hela oo maaragtay ilmuhu ka xanuunsan yahay way ila soo xiriiri karaan inaan wax isweeraasanaa muhiim ah fikradooyin